بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa Somali Inside Media ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn dunida oo xilligan oo kale aad daawataan xaaladda bariga dhexe 24 saac ee ugu dambeeyay warar waaweyn ayaa ka soo kordhaya waxaana madaxweyne Donald Trump uu si cad u yiri ma doonayo in aan xabad joojinta kordhiyo waxaad ogtihiin in xabad joojinta markaasi ay qaadatay 14 maalmood welina maalmo qura ay harsan yihiin isagoo oo Trump uu ku adkeysanayo in xabad joojintaasi uusan sii kordhin doonin Iran war cusub ayay ka soo saartay safiirkii dhawaan ay Israel u magacaawday Somaliland waa wararka ugu waaweyn bariga dhexe ayuu warkan ku jira sidoo kale isla Trump Iran ayuu mahadcelin iyo baaqba u diray maxay qosaysaa waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka bariga dhexe saacadihii ugu dambeeyay ku soo fiir halkan waa channel cusub oo aan uga hadli doono wararka ugu waaweyn caalamka iyo xiisaha ka taagan xilligan bariga dhexe waa maasan tahay saaxiib waxaan ku bilaabayaa mawduuceena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iran aysan haysan wax kale oo ay sameeyso marka laga reebo in ay soo dirto wafdi wada xaajood waraysi uu siiyay CNBC Trump waxa uu muujiyay rajo isaga oo yiri waxaan u maleynayaa inaan gaari doono heshiis weyn dabcan wuxuu la jeedaa in Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iilba oo dagaalka saddex geesoodka xilliga kan u dhaxeeyo inay gaari karaan heshiis ayuu markaas ninkan arkaya wuxuu sheegay in Mareykanka uu markaas u taagan yahay ama ka taagan yahay meel wanaagsan wada hadallada Iran isagoo intaas ku daray in aan markaas xakameynayaan marinbiyoodka Hormuz oo halka ugu weyn ee adduunka oo dhan uu isha ku hayo markii la weydiiyay hadii xabad joojinta la kordhin doono iyo hadii kale Trump wuxuu yiri ma doonayo inaan sameeyo midaas waqti badan ma haysano ayuu hadalkiisa sii raacay wuxuu kaloo sheegay in Iran taasi ay tahay wadada saxda isla markaana qasab ay tahay in wada xaajood ay gasho wuxuu ku leeyahay Iran waxay ku khasban tahay in wada xaajood ay nala gasho xabad joojintana 14 kaas maalin waxba ku dareemeyno maalmuhuna way isgurayaan waqtiguna waa uu sii socdaa madaxweynaha Mareykanka ayaa soo kale waxa uu sheegay in hadii Iran ay heshiis gaarto ay mar kale noqon karto mid xoog leh oo noqota dal weyn dabcan hadalkan waxa lagu tilmaamay mid sababasho iyo silsilasho ay ku jirto oo Iran uu ku beer la xawsanayo hadii dagaalkan aad ka baxdaan waxaad noqon kartaan buu leeyahay dal weyn tan waxa lagu sifeeyay mid kamid ah sababashooyinka madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay in hadii heshiiskan la gaarin ama heshiiskan markaasi aan la gaarin duqeynta Iran dib loogu bilaabi karo wuxuu yiri hadii wada xaajoodidan ay dhaqan gali waayaan mar kale waxa suuragal in duqeymuhu ay dib u bilowdaan dagaalkana uu sii qaraaraado warkiisu waa uu cad yahay ninka dabcan waxa si toos ah loo weydiiyay hadii uu dib u bilaabi doono weerarada iyo hadii kale isaga oo yiri waa laga yaabaa in ay dib u bilowdaan sidoo kale wada hadallada ka socda Islamabad ayuu soo hadal qaaday wuxuu ka jawaabay waxaan filayaa in duqeyn jiri doonto sababtoo ah waxaan u arkaa inay wanaagsan tahay in hore loo socdo laakiin waad og tahay diyaar ayaan nahay ciidankuna si buuxda ayuu u diyaarsan yahay ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump geesta kale hadii aan eegnana afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaa waxa uu cambaariyay go'aankii Israel ay ugu magacaawday wakiil diblomaasiyadeed Somaliland iyadoo Iran ku tilmaantay Somaliland inay qayb ka tahay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu intaas ku daray afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee markaasi Iran in arintan ay cadeyn u tahay markaasi in Israel ay doonayso kala googooynta dalalka Islaamka iyo inay abuurto kala qaybin ka dhex jirta dalalka gobolka ama ay isku daydo afayeenku wuxuu sidoo kale sheegay in talaabadan si toos ah ay ugu hor imaanayso axdiga qaramada midoobay iyo sharciga caalamiga ah isla markaana ay tahay xadgudub ka dhana madax banaanida midnimada iyo wada jirka dhuleed ee dal madax banaan sida markaasi uu shaaciyay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran wuxuu ugu baaqay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo ururka iskaashiga Islaamka midka midowga Afrika iyo dhammaan dalalka caalamka inay ka hortagaan sida uu markaas sheegay falalka sharci darrada ah ee ay Israel fidinteeda ku sii wado gobolka iyo faragelinta qaawan ee ay ku hayso madax banaanida dalalka adduunka sida uu hadalka u dhigay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran
إسرائيل ayaa Somaliland u aqoonsatay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Somalilandna weli waa qayb ka mid ah Soomaaliya oo ma aysan helin ictiraaf iyo aqoonsi caalami ah. Dalalka adduunka ayaana aad uga soo horjeestay go'aankii Israa'iil ay safiir ugu magacaawday Somaliland. Saaxiib haddii aad intaan la soo gaartay channelka subscribe soo dhig muuqaalka like saar saaxiibadana u sii share gareey waa mahadsantahay.